muuqaaladii muuqaalkan ka horreeyay aynu kaga hadlaynay linear equationta noocan ah dhammaantood waxaynu ku dadaalaynay inaynu soo saarno qiimaha x ama qiimaha y, qiimaha ay x leedahay ama qiimaha ay y leedahay. laakiin ka waran ama ma dhici kartaaba in aanu wax qiimo aba soo bixin? way dhici kartaa. markay marxaladaasi timaadaan waa marka aanay wax solution lahayn equationtu. masalooyinka noocan ah ee linear equations in two variableska waxaa jira nooc ka mid ah oo aan lahayn wax solution ah. balena isku dayn haddaba masaladan oo ka mid ah kuwa aan solutionka lahayn inaynu soo saarno qiimayaasha x iyo y iyo waxa dhaca. waayahay haddaba waxaa jira laba hab oo aynu u xalinayno masalooyinkii masaladan ka horreeyay. waa eliminationka habka loo yaqaano ama habka isla tirtirida iyo habka isku bedelka substitution method. haddaba inagu ka horeynana habka isla saarida ayaa waxaynu ku dhufanaynaa qiimaha x inagu doonaya horta labadan qiime marka elimination la leeyahay micnihii labadan qiime meesha yaala waa x-ta iyo y-da mid ahaan baad meesha ka saaraysaa oo mid unba soo reebaysaa si ay u suuro gasho inaad hal qiime iyo hal xaraf u hesho. waayo haddaba x-taynu meesha ka saarayna inagoo -3 xagga sare ku dhufanayna dabeedna -3 sababtaynu u dooranay waxay tahay x-ta xagga hoosta taalaa +3 ayay wadataa. dabeedna waxaynu rabnaa inuu qiimaha iyo xarafka x-ba meesha ka baxo. xagga sare markaa waxaynu ku dhufanaynaa siday u dhan tahay -3 dabeedna waxay noqonaysaa -3x oo markaas ku bato -3 iyo x -3 iyo 2y haddaad isku dhufatana waa 6y ayaa waxay kula mid tahay 12ka aan idhaahdee -3 iyo 4 haddaad isku dhufatana waa -12. waayahay intan hoosena sideeda la tegaysaa x 3x plus 6y ayaa waxay noola mid tahay 6. haddaba hoostaynu ka xariiqaynaa labadani way isla baxayaan. labadani sidaynu hore usoo sheegnay way isla baxayaan maadaamay laba calaamadooda kala duwan wataan isla markaana ay isku mid yihiin. labadana waa la mid oo y-duna iyaduna meeshay ka baxaysaa. sinu sheegaynay ama aynu ka cabsinaynay ayaa dhacday. labadani waa 0 plus 0 waxay kula mid tahay 6. waxaanaynu doonaynay labada xaraf inuu mid ahaan soo haro laakiin midna ma aanu soo harin. bal haddaba habkan aynu ka bedelo oo aynu isticmaalno habka substitutionka. habka substitutionkana labadan masalo inaynu mid ahaan soo qaadano weeyaan ama tasare ama toose midaynu ikhtiyaarno way toosaynu soo qaadanaa. waa 3x plus 6y ayaa waxay kula mid tahay 6. dabeedna waxaynu sameynaynaa y-daynu iska wareejinaynaa inagoo wareejinayna dhinaca midigta ayaa waxay kula mid tahay 6 minus 6y. dhinaca waxaynoo qaybinaynaa marka qiimaha la socda x xaggana waxaynoo qaybinaynaa qiimaha x. labadan haddaad isu qaybiso waa x keliya. intan haddaad isku qaybisana waxaa soo haraya 2 minus 2y oo haddii aad 6 u qaybiso 3 waa 2. mar kale haddii aad 6dan u qaybiso 3 waa 2y. okay marka intanaynu ku bedelaynaa halkay noo taalo x2 masaladii aynu kasoo saarnay maahe ta kale masaladaynu intaa kale soo dhex baxnay maahe masalada kale ayaynu ku bedelaynaa inta aynu la soo baxnay. way tanaynu kala soo dhex baxnay marka inta halkan inoo taala intan waxaynu kala soo dhex baxnay masaladan. dabeedna waa inaynu ku bedelaa ta sare waxay noqonaysaa marka -2
minus 2y maybe minus 2 maaha oo ka xumay 2 caadiya 2 minus 2y plus 2y ayaa waxay noola mid tahay 4 dabeedna halkaa markay taagan tahay labadani lid bay isku yihiin ama way iska soo horjeedaan waa minus 2 iyo plus 2 dabeedna minus 2 iyo plus 2 waa 0 waayo waxay la mid tahay 2 minus 2 hadda waxa raacsan xaraf micno ma sameynaya marka xarafka raacsani xaggan kale wuu raacsan yahay in labada dhinacba xaraf kuwa raacsan yahay dhinacna uu raacsan yahay dhinacna uu raacsan yahay laakiin waxay ka doonaan lahayd hadduu dhinac raacsan yahay dhinaca kalena aanu raacsanayn marka intaasi waa 0 2 ayaa marka waxay kula mid tahay 4 hadda mar kale waxaad arkaysaa inay meesha ka baxeen labadii qiimo midkaynu doonayno u soconay inuu meesha ka baxay waxaynu doonay y-da maadaama egsta already haysanay waxaynu doonayna inaanu y-da la soo baxno y-dina meesha ka baxday haddaba goormay timaadaa xaaladani waxay imanaysaa marka aanay equationtu lahayn wax solution sababtuna waxa weeyaan labada graph ee labadan equation waa equationtan hoose iyo equationtan sare parallel weeyaan labada xariiqay sameynayaan waa laba xariiqo parallel solutionkuna wuxuu yimaadaa markay labada xariiq meel iska jarayaan tusaale haddii graafku sidan u yaallo aan idhaahday dhidbadu x iyo y markay sidan yihiin haddii xariiqu halkan oo marayo ay tahay kaba soo qaad equationta sare xariiqeeda isla markaana equationta hoose xariiqeedu uu isaguna xaggan marayo micnaheedu waxa weeyaan bartaa ay iska jarayaan oo ah halka ayaa waxay noqonaysaa ayaa qiimayaasha dhaca halkaas waxay noqonayaan solutionta equationta ama si guud haddii ay isjaraan waxaad heli kartaa solution laakiin haddayna isjaran wax solutiona ma helisid bal marka haddaba aynu tijaabino inay labadan equation graafkoodu isjaro iyo in uu parallel yahay way inagoo isticmaalin qaababkii horena soo isticmaalay kan ugu fudud oo ahaa interceptyada inaynu soo saaro mini tikraarada egasta iyo tikraarka egas aan idhahda iyo tikraarka y ayaanu soo saaranaa tikraarka y si aynu soo saarno waa inaynu halka y taala ka dhigno waa inaynu halka egas taala ka dhigno 0 dabeedna waxay noqonaysaa 0 plus 2y ayaa waxay noola mid tahay 4 waa equationta sare intan sare ayaynu ka hadlaynaa dabeedna dee waxba kama bedeleyso 0 plus 2y waxuu ku biirinaya ma jirto 4 ayay noola mid tahay labada dhinac waxaynu u qaybinaynaa 2 dhinacna 2 sidaa daraaddeed y waxay noola mid tahay 2 waa halkay egstu tahay 0 y-du marka waxay noola mid tahay 0,2 waayo mar kale aynu ku bedela halkay waa isla equationta sare uun aynu ku bedela halkay taalo halkay y-du taalo aynu ku bedelo 0 waxay noqonaysaa marka x plus 2 times 0 halkay y-du taalo ayaa waxaynu ku bedelay 0 ayaa waxay kula mid tahay 4 marka x intani meeshay ka baxaysaa ayaa waxay noola mid tahay 4 sidaa daraaddeed egasna waxay noqonaysaa 4,0 waayahay aynu halkan kasoo qaadno -1 -2 -3 -4 markale bartan 1 2 3 4 waxay dhidibkan jifaa waa egas kan taaganina waa waay marka kan taagan aynu sameynay iyagana tirooyin 1 2 3 4 1 2 3 4 okay y-du waxa weeyaan waa 0,2 marka 1 2 halkan ay noqonaysaa
bartaas ayay noqonaysaa. Waayo x-tuna waxay noqonaysaa positive oo xagga positive-keena u kacaynaa. Marka 1, 2, 3, 4 halkaasay noqonaysaa iyaduna. Halka casaanka aynu marinay ayay noqonaysaa. Dabeedna labada barood haddaad isku xidho qaabkaasuu noqonaya. Laakiin waa equation-ta sare ayay ahayd. Equation-ta sare marka waxaan x plus 2y ayaa waxay kula mid tahay 4. Equation-tan hoosena waxay noqonaysaa inaynu sidaas lamida samayno. Waayo halka x taala aynu 0 ka dhigno waa 3 times 0 ayaa waxay noola mid tahay 6y waxaa loo geynayaa waxaa loo geynayaa 6y waxay noola mid 6. Intani meeshay ka baxaysaa marka 6y ayaa waxay noola mid tahay 6 xagga 6 oo qaybi xaggana 6 y marka waxay noola mid tahay 1 y bartay y ka dhacdo bartay y ka tigraara xariiqan waxa weeyaan 0,1 mar kale halka uu x ka taabto tikraar iyo taabasho waa isla halkan. Halka uu x ka taabto ayaanu soo saaraynaa. Inagoo bartay y taala ku bedelayna 0 waxay noqonaysaa marka 3x ayaa waxaa loo geynayaa 6 times 0 oo inoola mid 6. Dabeedna 3x plus 0 ayaa waxay noola mid tahay 6. 0 meeshu ka baxayaa waxay noola mid tahay 6. Dabeedna labada dhinac haddaad u qaybsato xaggan 3 haddaad u qaybsato xaggana 3 x waxay noola mid tahay 2. Taa micnaheedu waxa weeyaan halka uu x ka tigraarana waxa weeyaan 2,0. waayahay haddaba aynu isagana xariiqan ku dul qorro. Waxay noqonaysaa markaa halkay x-tu tahay 0 y-du waa 1. y-du halkaasay 1 tahay bartaas y-du waa 1 waayo halkaasaynu markaa calaamadaynayna. Mar kale halkay y-du 2 tahay x-tu waa 0. y-du waa 0 halkay x-tu tahay 2 y-du waa 0. halkay x-tu markaa tahay 2ga bartaa weeyaan y-du waa 0. xariiqana marka wuxuu noqonayaa qaabkaas oo ah equation-ta hoose 3x plus 6y ayaa waxay kula mid tahay 6. Marka waad arki kartaa labadan xariiq meelna iskama taabtaan. Taa micnaheedu waxa weeyaan equation-tani ma laha wax solution. Has no solution. يعني ما سو ساري qiimaha x qiimaha y